السلام عليكم. رمضان مبارك، كل عام وأنتم بخير. meel walba aad joogto waqti walba ay ku tahay waxaan ku leeyahay Ramadaan Mubaarak. Waxaan rajaynayaa in Ilaahay nabad ku gaarsiiyay adigoo caafimaad qaba bisha Ramadaan. Aadna diyaar u tahay inaad ka faa'iidaysato bisha Ramadaan, walina nimcooyinkii Ilaahay ku siiyay aad ku mahadceliso oo aad qaadatay amaradiisa, tarbiyeynayso naftaada iyo sidoo kale wax walba Ilaahay ku faray aad raacayso, wixii Ilaahay ka reeban aad ka reebtoonaanayso. muuqaalkan haddii Ilaahay awoodda leh uu ka raali noqdo waxaan ku eegi doonaa the most questionskii ugu badnaa ama su'aalihii ugu badnaa oo Google-ka la weydiiyo xilligii Ramadaanka. su'aalo markaas u fiirisid kuwa waa iska fanni oo waa iska qosol, kuwane waa kuwa u baahan cilmi iyo xaqiiqo oo qof walba uu soomayo oo islaama inuu ogaado xataa u baahan yahay. qayb ka mid ah ayaan muuqaalkan ku soo qaadan doonaa, laga yaabay qaybaha kale qaar ka mid ah inaan muuqaalada dambe ku soo qaadano. waxaa ka mid ah su'aalaha la weydiiyay Google-ka: waa maxay Ramadaan? why aan u soonaa Ramadaan? ama sababta aan Ramadaan u soono maxay tahay? markii Ramadaanka la gaaro sidee loo soomaa? qaab nooceel raba in loo soomo? kala su'aalaha la weydiiyay oo aadka u muhiimkana waxa weeyaan markii aan soomanahay maxaa muhiima ama ay qasab tahay inaan ka fogaado si aan soonkeyga hadafkii ama ujeedadii aan kala aan u gaaro. maxay tahay faa'iidooyinka uu leeyahay soonka? why Ramadaan ay u tahay bisha Islaamka? haddii aan ka jawaabno su'aasha ugu horreyda ee ah waa maxay Ramadaan? Ramadaan waa bisha 9aad ee bilaha hijriga ee muslimiinta. Ramadaan waa bil la jideeyay ama la soo dejiyay Quraanka. Ramadaan waa bil ay soomaan dadka muslimiinta ah laga bilaabo xilliga fajr saadiqa ama waa beriga uu dhasho ilaa iyo qorraxdu ay ka dhacdo, ay ka soomaan cuntada, sharaabka, cabitaanada iyo waxyaabihii la midka ah. soomka waa tiirka afraad ee tiirarka islaamka. arkaanul khamsa ayuu ka yahay tiirka afraad. ilaahay ayadiisa quraanka wuxuu ku leeyahay: yaa ayyuhalladhiina aamanuu kutiba calaykumus siyaamu kamaa kutiba calal ladhiina min qablikum. kuwa Alle iyo nabi rumeeyayow, waxaan idinku waajib yeelnay soon sidii ummadihii idinkaga horreeyayba aan ayagana ugu waajib yeelnay. bishan Ramadaan waa bil aad u barakaysan, lagaga baahan yahay nafsadaada, noloshaada, waqtigaaga inaad la saaxiibido akhrinta Quraanka Kariimka. ilaahay ayadiisa quraanka wuxuu ku leeyahay: shahru ramadaan alladhi unsila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wa bayyinaatin min alhudaa والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومعنى هذا يتهي بشان رمضان وبشي أسودك القرآن الكريم ويقول إلهي قفكي سوغارة بشان رمضان حصومه، قفكي جران أو حنوصا أما سفر كجرة ويسور قلي ويدا إنو صومنا maalmaha ha iska afuro. Ramadaanka markii uu dhamaado maalmo u dhigma intii uu afuray ha soo qaleeyo oo ha niyeysto inuu soomayo soon Ramadaan oo qadaa lagu leeyahay uu dib ka soo qaleeyo. ilaahay wuxuu ayadiisa quraanku si raacinayaa ku leeyahay: yuriidu Allahu bikumul yusra wala yuriidu bikumul usra. ilaahay dib idin lama doonayo ee fudeed ayuu idin la doonayaa. marka soomka waa naxariis. qofkii u qaata inuu yahay soomka dhib, inuu yahay cadaab, inuu yahay bil baahil isu dilayo, bil rafaad badan, no, adiga waxaa ka dhigata weeyaan saaxiib. balse ilaahay bishan wuxuu inoogu jideeyay inaan soono in ay tahay bil naxariis, bil nimcooyin waaweyn maaragtay ilaahay uu ina siinayo oo aanan helaynin bilaha kale, sida 10ka ugu horeeya oo naxariisa, 10ka ku xiga oo dambi dhaafa, 10ka ku xiga oo naarta la iska xoreynayo. waa darajooyin aad u waaweyn. sidoo kale bishan Ramadaan waxaa ku jirta habeenka la yiraahdo Laylatul Qadr oo ah habeen cajiib. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nabad nagu wada tuso insha Allah.